ayaa hal mar waxaa dhacay walax aad iyo aad maxaan ku yiraahdaa looga argagaxo xaqiiqatan uma sheegi karo ma korbay ka soo dhaceen ma dhulkii ka soo baxeen ma qof ordayay ma garanay xaqiiqatan laakiin dhibaato aad xoog leh ka dhacday meesha sidaan arkayno jirkaaga dhiig iyo dheecaan waxba ku daadsan dadkii kula fadhiyay inta aad xasuusato yaad aragtay dhaawacooda ama dhimashadooda walaal dad badan baa dhintay agaasimayaal baa dhintay gudoomiyaal degmo ayaa dhintay inta aan ka xasuusto Allahu naxariisto dadka qaar waxa way cod carabkayga kuma sixi karo xaqiiqatan sida aan isku ahayn iyo xaaladda aan daqad ka hor daradeed agaasimihii shaqaalaha dawladda hoose kamid ahay waxa kamid ahay maxaan ku yiraahdaa garyaqaankii maxaan ku yiraahdaa sharciyaankii la taliya xagga sharciga ee dawladda hoose xamar oo ka taxan sabriye Allahu naxariisto gudoomiyii degmada maxaan ku yiraahdaa waa bari asigana waa aan xaqiijiyay sidoo kale waxaa naf dhib lagu qaado nolol geer aan sixi karin afayeenkii hore gobolka Banaadir haddana ah agaasimaha guud ee nadaafadda ee maxaan ku gobolka Banaadir Cabditax Umar Xalane بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا سومالي من ربع عالم كأد كجوكتان حلقة أدنى قبل ساعتين وعد المديت ميدي جروب فضلا هدي أدنى عصبت هاي وحن كعصرين أنا أدنى صابيرتو كدينا مقالدين لو ذاك أصحابك كلا سي أيجن فكر كود يعرفتي وده يقصد ديبتان سيدا كلا هاي لوبين إن أدري حديد إن جنبالك سي أد مقال ولبو أنسوق لنا أدوها الشيء الملت جوديسا انت كدب ان إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا ku hadlay bagaca teamka dulmidit media group waxaan halkan tacsiyo tiiraan leh aan ugu direynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii qaraabadii asxaabtii ay ka geeriyoodeen dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee u shaqeynayay wadankooda oo maanta naftooda ku waayay ayagoo ku jira hawlo shaqo isla markaana la beegsaday qarax oo runtii aan dhihi karno waa ka duwan yahay qaraxidii hore aan maqli jirnay ama aan arki jirnay maanta oo ah July 24 waxaa qarax la beegsaday xarunta gobolka Banaadir oo xilligaas uu ka socday shir ay ku lahaayeen qaar ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka oo ugu horeeyay injineer Riso sidoo kale waxaa halkaas fadhiyay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir agaasimayaal iyo dhammaan inta uu khuseeyo arrimaha gobolka Banaadir ayaa maanta halkaas shir ku lahaa laakiin si lama filaan ah waxaa dhacay qarax oo runtii aan horey loo arkin maxay yeelay qaraxan ku yar wuxuu ugu duwan yahay wuxuu ka dhacay gudaha hoolka lagu shirayay ama goobtii la fadhiyay ilaa hadda dadka goobta joogay markii la wareystay qaarkood waxay ku sheegayaan in aysan ogeen halka uu ka yimid ma wax cirka ka soo dhacaya ma wax dhulka ka soo baxaya ma wax meesha ku diyaarsanaya ma qof soo galay oo yani naftii hor ah miya ma dadka meesha fadhiya qaarkood ma wateen ilaa ay hadda wax xaqiiqo ah laga ma hayo sida loo fadhiyay kaliya waxa la maqlay qarax dhacay mas'uuliyiinta qaarkoodna halkaas ay ku waayeen naftooda rabbina xariis janaasiyo sidoo kale dad badan oo dhaawac ka soo gaaray oo kamid yahay duqa magaalada Muqdisho injineer Riso oo asagana dhaawiciisa loo qaaday isbitaal Digfer ilaa haddana laga ma hayo warbixin sax ah laakiin intaas oo dhan waa shay aan isleenahay waa waxyaabaha oo soo kordhay ama soo ziyaaday ma la dhihi karaa xarunta dhan ay ku shiraysay ama ay deganeed ama ay ku shaqeynaysay gobolka Banaadir oo ah dawladda hoose ee magaalada Muqdisho yani amaankeeda wuxuu ahaa mid habacsanaan oo ka muuqdo maxaa yeelay maadaama qarax la soo geliyay halkii lagu shirayay ama halkii laga fadhiyay xiliyadii hore waxaan maqli jirnay baawar laga soo buuxiyay walxaa qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore kadibna dabley gudaha u soo gashay iyo wixii la mid ah laakiin kan waxaa laga yaabaa waardiyaha banaanka joogo ama dadka kale xafiisyadooda ku jira inaysan war ka haynin waxa meesha ka dhacay hoolkii oo lagu shirayay marka waa farsamo cusub iyo nidaam cusub kaliya waxaan dhihi karaa arrintaas waxaa fududeeyay dadka tirsan howlwadeenada ama shaqaalaha xarunta gobolka Banaadir si waliba ahaataba musiibadaas ayaa dhacday waxaan rabnaa inaan Soomaalida aan la qaybsano murugada iyo tiiraanyada ka soo gaartay halkaas inta ku dhimatay Allahu naxariisto inta dhaawacanna Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad siiyo runtii haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan wax badan aan dhibsanay inaan maqalno markastaba yani bad news ama akhbaar aad u xun oo ah inuu qarax dhacay inay dad dhinteen inay dad dhaawacmeen iyo wixii la mid ah marka wixiina ma aha wax oo maxaa la dhihi jiray once a year ah ama sanadkii hal mar ah
ama dhowr bil kadib hal mar ah waxay noqdeen wax isdaba joog ah. waxaan xusuusanaa July 12 qaraxii ka dhacay Kismaayo oo aan ku weynay dad badan oo agteena khayl ku ah isla waa bishii July aan ku jirnaa waa qaraxii klaasigan oo ka dhacay xaruntii gobolka Banaadir oo ah meelaha ugu amaanka badnaa oo yani lasleeyahay way adag tahay in si fudud oo lagu gudbo. marka waxaad dareemi kartaa inay kasii daran tahay magaalada inteeda kale maadaama xaruntii dowladda ay sidaas ay tahay yani qofkii rabo inuu qarxiyo hotel ama goobo ganacsi ama meel shacbi isugu yimaadaan runtii aad u fududahay. marka dowladda waxaan leenahay fadlan attentionkiina isku geeya kadibna maxaa dhihi jiray waxyaabahan soo noqnoqday oo dhageheena ka batay yani xal ha loo waraadiyo shacabka Soomaaliyeed ayaga inay isku duubmaan wax waliba oo ayaga dhib u keenayna si wada jir inay ugu tagaan Allah subhanahu wa ta'ala ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ka ana weydiisanayna inuu rabbina harajana siiyo inta dhimatay. sida aad ogtihiin galabta halkan waxa ka dhacay ficil argagixiso oo aad u foolxun oo lagu qaaday gobolka Banaadir madaxdiisii gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo agaasimayaasha gobolka Banaadir oo shiraya lagu qaaday. ficilka argagixiso wuxuu geystay dhaawac iyo dhimasho. ilaa hadda inta aanu ognahay waxaa dhintay 6 qof oo ay ku jiraan 2 gudoomiye degmo iyo 2 agaasime. sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo dhaawiciisu uu halis ahayn hadda aanu digfeer ka nimi soo aragnay laakiin ku jira dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan inuu xaaladiisa ay caadi ku soo celiyaan. waa fiican yahay ilaa hadda sidaanu ku soo aragnay. ilaahay ha uu siyaadiyo caafimaadka iyo nabad qabka. waxaana dhaawacay inta aanu ognahay 6 kale oo cusbitaalada aanu soo marnay aanu kula kulannay dhaawacooda dhakhaatiirtu kula dadaalaysay dhaawacooduna kala duwan yahay. waxaanu cambaaraynaynaa dowladaha ficilka argagixisay bahalnimada. waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay qaarkoodna gudaha laga duufsaday oo doonaya dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan dhiig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la'aan. dagaal qofkii ku jira dhimasho dhaawac waa la kulmaya. marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aad loo soo qorsheeyay maadaama uu gaaray meel aad muhiim noogu ah. baaris ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka boolisku ku jiraan sidii wax u dhaceen. waana ogaan doonaa sida ugu heerka sareysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada cidii ka dambeysay iyo cidii gacan siisay ee gaarsiisay halka uu gaaray. wixii ribooda iyo wixii ka soo kordha ama dhibka dhacay waanu isleenahay inta aad sheegteen buu ku koobnaan doonaa. waanu la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed iyo warbaahintaba. marka anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha ka ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed nabadda jecel horumarka iyo wanaagga jecel waxaanu tacsiin u diraynaa intii dhimatay Allah u naxariisto. naxariistii janno Allah ha geeyo. waa galayaan waxay ku galayaan iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya oo wanaag la raba ayay dhinteen. argagixiso ka gardaran ayaa ficilay soo maleegtay ku dhinteen. waxaanu ku dadaalaynaa inaanu caafimaadkooda iyo soo kabashadooda ku dadaalno intii dhaawaca sida ugu fiican ee suuragal ah. waxaanu shacabka Soomaaliyeed leenahay hal isdejiyo. dagaalka argagixisada aynu kula jirnaa wax adoon la og yahay weeye. intii aynu dalkeena ka ciribtiraynana waa la dhimanaya. wadamo badan oo ina ka xumaa ayaa maanta laga ciribtiray oo
nabad ku nool shacabka Soomaaliyeedna maanta waa u diyaarsan yihiin dawladoodu inay gacan bira ku qabtaan kooxaha argagixisada marka intaas baanu hadda idila wadaagaynaa aad iyo aad ba u mahadsantihiin